yaabnaye ma yaabteen runtii siyaasad marka laga hadlayo waa dadka in wixii anfacayana loo raadiyo wixii dhibaato ahna laga ilaaliyo. waxa anfaca iyadoo laga raadinayo ama dalka gudihiisa ha noqoto ama banaanka oo de siyaasadaha arrimaha dibadda iyo ganacsiga iyo relationshipka iyo siyaasad noocaas. islaamkuna culimada islaamkuna waxay yidhahdaan marka siyaasad islaamiya laga hadlayo micnaha waa jalbul maslaxa dar'ul mafsada, dadka in wixii wanaagana loo soo jiido wixii dhibaato ana laga celiyo oo micnaha laga ilaaliyo. laakiin waxaad moodaa Soomaalidu siyaasadda inay u yaqaanaan been. kelmadda siyaasad af Soomaali ahaan hay siyaasadayn iyo hay sirin waa isku micne. marka hebel waa siyaasi micnaha hebel waa beenaale ayaa loo fahmayba. shacabkii marka qofkii been u sheega ee jaha wareeriya wayba ku faraxsan yihiin oo waxa la leeyahay waa siyaasi. marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay marka waxaad arkaysaa hadda nimankan waftida ah ee Mareykanka ah ee soconaya ee danaha amniga iyo siyaasadahooda iyo dana iyagu leeyihiin Soomaaliya u imanaya Muqdisho tegaya meeshan tegaya Garowe tegaya Hargeysa imanaya. saddexda meelood markay tagaan mid kasta oo ay u tagaanba wuxuu u turjumanayaa waxa isagu uu doonayo. dowladda Soomaaliya oo kale waxay u arkaysaa shacabkii u sheegaysaa in cilaaqaadka Mareykanka iyo Soomaaliya la xoojinayo oo meel fiican Soomaaliya marayso. Puntland markay yimaadaanna Puntland waxay leeyihiin waa idinkii lahaa ergo-an baatihiin ergo-anka waan ka baxnay soo ma aragtaan waxaa noo imanaya waftiyo kalena waa noo soo socdaan. intaasay dadkii shacabkii u sheegayaan, dadkii ay isayeen dowladda dhexe ahaana ay message ugu dirayaan. nimankaas markay Somaliland yimaadaanna Somaliland siyaasiyiintooda iyo shacabkii waxay u sheegayaan ictiraafkii baa Mareykanku soo wadaa waana ila ictiraafaya Trump baa saa yidhi. nimankanna waxay inuu ugu yimaadeen Mareykanka ah ictiraafkii bay wadaanba oo nagala hadlayeen. shacabku hadduu xamar joogana siyaasiyiinta jooga waxay u sheegaan buu rumaysan. Garowe markay yimaadaanna shacabka waxa loo sheegay rumaysan. Hargeysa markay yimaadaanna shacabku waxa loo sheegay rumaysan. aqoon-yahanadii culimadii dadkii wax garadka ah qof kaliya oranaya war Hargeysa 35 sano been nayloo sheegay oo wadan hebel baan ictiraafaya iyo maqaam saraan iyo wax khiyaali aynu ku jirey war runta aynu isu sheegno oo dadka laga daayo bayhoofka. Puntland saas oo kale ma oranayso warnimo yahow Mareykan inooguma iman ujeedooyin kale ee danihiisa iyo amnigiisa iyo hawlihiisa inoogu yimi. dowladda dhexe saa ma oranayso. war marka nimanka siyaasiyiinta Soomaalida ah shacabku inay ka baraarugaan oo dadku ay caadi u fahmaan oo ninkii siyaasi noqonaya gaar ahaan dhalinyarada aan la hadlaya war dadka wixii dan u ah lagala hadlo wixii dhibaato ku aan laga ilaaliyo. laakiin siyaasi micnaha beenaale kelmadda hay siyaasadayn iyo hay sirin waa isku micno afka Soomaaliga. marka qofkii micnaha waxba siyaasadaynayo been baan sheegaya hadduu qofku khaladka adduunka ugu weyn iyo beenta adduunka ugu weyn uu sameeyo oo la yiraahdo hebel muxuu saa u yeelay waxa la oranayaa siyaasad buu ka wadi. hadduu rabo dad buu leynayaa marka la yiraahdo maxaa dagaalka laga waday dagaalka siyaasad buu ahaa maxaa siyaasadda ma dad kale laayay oo leysay wadinki arkay dad wada iska maraya gantaal iska dhufanaya laba qabiil baa madaxa la isu gelinaya cid maamulaho la doorto ummadoo dhan dooratay baa qof bini intuu iska soo fadhiista caayaya oo oranaya wuu khaldan yahay buuq furaya cid qabanaysa male qabiilkiisa baa garab istaagaya. marka la yiraahdo wiilkiina edabta daran ama qofkan waxaan sameynaya ee ummadii waxa isku raacday oo dhan diidan maad qabataan waxay oranayaan dhibaato male siyaasad buu ka wada waa siyaasi oo siyaasi markaa ma inuu dadka caaya oo uusan xishoon oo wuxuu doono sameeyay miya. marka war dadkeenu waxay u baahan yihiin baraarug indhaha inay furaan bay u baahan yihiin. dunida saddexaad oo dhan baa fikirkaasi yaala shacab hurda oo maxay ahayd la laaluushayo oo masaakiin oo dhibtii dugsanaya oo aan baraarugayn oo iska hurda oo qofka xilka doonayaana ujeedadiisu ay tahay inuu ka shaqeysto uusan kursigaba qofku u doonayn inuu dadka bedelo oo nolol wanaagsan iyo nabadgelyo iyo nolol isbedesha ma u socdaan.
qofku kursi markuu doonayo ama wasiir ha noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama xilalka ka hooseeya ujeedadiis waxa weeye inuu ka shaqaysto oo lacag ka helo ma aha inuu dadka u shaqeeyo inuu ordayo ama uu doonayo ummadda inuu bedelo marka war siyaasiyiin dadka u shaqayso oo noloshan rootiinka ah beenta ah gaajada iyo buuqa ah dagaalada ah khiyaaliga ah ee Mareykan baa yiri iyo Ethiopia tiri iyo Ethiopia waa dal dariskeena ah waxa weeye wixii maslaxad ah inaga aynu ka doonayna waa ka raadsan karaa iyana maslaxad way naga soo doonan karaan Mareykan saas oo kale waa dal adduunka jira masaalix buu leeyahay masaalix baynu leenahay laakiin khiyaaliga iyo beenta dadka loo sheegayo la leeyahay Mareykan baa wuxuu u socdaa itiraaf iyo Mareykan baa wuxuu u socdaa inuu Puntland go'doonka ka saaro oo siyaasado cirka ay maraysaa iyo dawladda Soomaaliya markuu u tago oo dhanaysa maartay cilaaqaadka ee Soomaaliya iyo Mareykanka cirka maraya war waxaas ma jiraan nimankani amnigooda iyo danahooda u socdaan idinkuna danihiina inaad raactaan ummadan beenta ma been baa lagu noolaanayaa siyaasad been ah oo rootiin ah oo lagu celcelinayo oo dhibkii aan laga baxayn oo aad moodid yani nolol saa iska ah xataa culimadii markay hadlayaan dadkii culimada ah waxay ka hadlayaan way isradinayaan laba wadaad oo yaryaroo intuu mid meel soo fadhiisto oranaya salafiye jadiida tahay adigu ictisaam baa tahay maanta oo dhan waxaasay ka hadlayaan khiyaaliga ah dhibaatada ummadda haysata in dadku midoobo in dhibka laga baxo kama hadlayaanba maanta oo dhan hebel oo adaa basaas for nothing Allah yaabaysa muxaadarooyinka inta ugu badan ee culimadu soo jeediso waxa weeye ninkii naagtu jacayl bay ka hadlayaan ninku naagtiisa maartay saaha u galo naagtu ninkeeda ha maqasho war anaga maanta dhan ma waxa laga hadlayaa nin iyo naag adduunku noloshii diinta islaamka oo dhan ma nin iyo naag baa laga hadlayaa dadku nolol bay u baahan yihiin oo aqli iyo fikir maskax baa la rabaa ma dad sexual ma maanta dhan waxa laga hadlayaa naagtu ninkeeda raali geliso naagtu ninkeeda maqasho naagti ninkeeda maqlaysa u taala dadkuna waxa way garanayaan kun gorbaan loo sheegay laakiin iyadoo laga hadlayo hadana waxyaabaha kale in laga hadlaa wanaagsan laakiin mawduuc iyo target in laga dhigto muxaadaradii su'aali culimada la weydiinay shacabku weydiinay fatwooyinkii qoraaladii wax walba naag iyo nin baa laga hadlayaa naagtu ninkeeda ha maqasho ninku naagtiisa ninkeega saa ma u geli karaa noloshiiba waxaasaad ka dhigteen marka war isbedel baynu u baahannahay sidan hadda aynu nahay haddaynu ku soconno dee diintiina waad micna tirteen oo dariiqii saxa ahaa ma hayno ilaahayna heshiis lama nihin inagiina heshiis ma nihin caalamkiina heshiis lama nihin marka sheekadan yar ee ninku naagtu ninkeeda ha maqasho ka saarad oo mawaadiicda kale ee faraha badan ee baahida adduun iyo aakhiraba in laga hadlo khilaafkan culimadu ay yarayso urdiimeedyada yarar ishaye ee buuqaya ee caalam meel marayaba aan la socon hebel baayid waxaas dadku way ka daaleen dadku hadda idinma dhegaystaan way og yihiin waxaad ka hadlaysiin ama aad isu jawaabaysaan oo isradinaysaan ama maxay tahay nin iyo naagtu iyo aad ka hadlaysaan ma sariirta ka hadlaysaan micnihii baad ka yani fada waa micnihii baad ka qaadeen marka dadku uma baahana waxa in lagala hadlo kun goor baad kala hadasheen ka socda